السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأودي حسن عيجة هل كداون السنة وحسن عيجة channel ما أنت الرياكشن ما بحنينه وحكى لنا ودنك السياسة ضد إثيوبيا تضبط كان الرماح حساسية كتاجرين كهل لنا الرماح هو وين وحكم ذا محابس lasii daayay hadal hayn fara badan oo ka dhalatay ayaan ka hadlaynaa iyo waxyaabaha laga yiri dabcan saddex kooxood ayaa lasii daayay bahayd maalintii jimciyaan soo dhaafnay saddexda kooxood waxay kala ahaayeen koox uu hogaaminayo asaasihii falaagada TPLF sabhatnaga iyo ururka kale isaguna lagu magacaabo Baladaraas oo uu hogaaminayo Iskandarnaga iyo kiiskiisa dadka ku wadaysna waxa kale ka mid ahaa Jawaar Maxamed oo isaguna activist qowmiyadda Oromada ka soo jeeda isla markaana saameyn badan ku lahaa siyaasadda dalka oo isaguna xidhnaa sanad iyo 8 bilood isaga Iskandar isku kiisay hay'adda dilkii Hajalu Hundaysa 2012 dalka taariikhda dalka Ethiopia bishii sano ka dhacday dalka dilkiisaas iyo arrimo la xiriira ku gadaaman baa loo haystay bahayd dawladu siyaabo qaabka ugu hadashay sideenta nimankaas waxay tiri ay ku sheegtay in gal dacwadeedkii ama dacwadii socotay la hakiyay oo hakad la galiyay isla markaana sababta xabsiga looga soo saaray saddexda kooxood ay tahay in maaragtay qayb ka noqdaan ama la dardar galiyo wada hadallada qaran ee dhawaan la filayo in dalka ay ka dhacaan isla markaana muwaadiniinta Ethiopiaanku wax kala tabanaya ay shiraan wax la isla ogol yahay la hirgeliyo hadaba laba group wax hadal hayn fara badan kama imanin oo waa groupka hogaaminaya Iskandarnaga iyo groupka hogaaminaya Jawaar Maxamed oo iyagu ku eedeysnaa arrimo la xiriira rabshadihii ka dhashay muxuu ahaay dilkii loo geystay Hajalu Hundaysa dooda ugu adag waxay ka dhalatay waa kiiska ama gal dacwadeedka sabhatnaga iyo kooxdiisa oo ilaa 8 qof dhan oo iyagu xabsiga laga sii daayay oo kamid yahay madaxweynihii hore deegaanka Tigray Abay Waldo iyo dhowr qof oo kale hadaba hadal hayntu waxay tiri oo u badnayd nimankaas wadankaas Ethiopia dhibaatooyinka kala duwan ka geystay in la sii daayo munaasib ma ahayn hadaba arintan sababta dawladdu ku sheegtay waxa weeye nimankaas la sii daayay ka soo jeeda qowmiyadda Tigray inay yihiin dad ah isla markaana aan ku jirin golihii dhexe iyo guddiga fulinta xisbiga TPLF daadooduna ay aad u weyn tahay isla markaana xanno kala duwan ay qabaan saa darteedna saas lagu fasaxay arintan waxa aad uga falceliyay dadka ka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada hawo badnaadan kuwooda wax qora iyo intooda media ka hadasha waxyaabaha ugu badan ee ay leeyihiin waxa weeye nimankaasi waa ragii ka dambeeyay meydka wali sii qoyan ee kaga soo bilow weerarka lagu qaaday talaskii waqooyi ee magaalada Maqale saldhigiisu ahaa saadkii 2020kii dhamaadkiisii isla markaana sababta uu ahaa dagaal weyn inuu qarxo kaasoo dad iyo dunyada maartay lagu hoobtay dadka sida weyn uga soo horjeestay waxa kamid ahaa Andargajo Sige kaasoo isaga laftigiisa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed xabsiga ka sii daayay 2010kii markuu maartay xilka la wareegay Ra'iisul Wasaarnimada wadanka ayaa kamid ahaa waxa kaloo kamid ahaa dadka activistayaasha ee sida weyn wax u qora noocay doonaan baa haaday qowmiyadda Axmaarada ka soo jeeda waxa ugu dambeeyay oo maanta ka hadlay nin la yiraahdo Masai Makonnen oo kamid ahaa taageerayaasha ugu waaweyn ee Abiy Ahmed saddexdii sano ee barkii la soo dhaafay Abiy sida muxuu ahaay aan qarsashada lahayn u taageersanaa waxaana ku dhaliilay kasakow sideentaas la sii daayay nimankaas Ra'iisul Wasaaruhu hadal uu shalay jeediyay oo uu kaga hadlay munaasabad xadhiga looga jaray dhismaha wasaaradda gaashaandhigga oo dhawaan shalay xadhiga laga jaray halkaas oo marta Ra'iisul Wasaaruhu hadal ka soo jeediyay oo hadalkiisana ay kamid ahaayeen nacameen Ethiopia maaragtay
ay kaliya ayna ka fikirin guusheeda balse dadka guuldareysta xitaa ay cafis u fadiso masay makon marka waxa uu yidhi ra'iisul wasaaruhu inuu hadalkaas inaanu ka hadalba ayay mudnayd ayuu leeyahay sidoo kale xisbiyada ka hadlayagona waxa ka mid ah xisbiga Izema oo dabcan golaha wasiirada dalka kuraas ku leh maamulka magaalada Addis Ababa kuraas ku leh iyo deegaanada qaar kood bixitaa kuraas ku leh xisbigaas waxa uu yidhi nacam waxa la yareystay dhibaatadii soo gaadhay shacabka Itoobiyaanka ayaa la yareystay maadaama raggaas la sii daayay xisbiga kale abin baa isaguna ka hadlay siyaabo kala duwan bayna dadku ay dabcan uga falcelinayaan dhanka Soomaalida laba doodood baa taala labada doodood waxay kala yihiin maxaabiista Soomaalida ee ku jirta xabsiyada Addis Ababa sababta loo sii deyn waayay marba hadii sabxaatna gal sii daayay sababta loo sii deyn waayay maxay ahayd iyo lama sii deynayay ee ku jiraan marka labada doodood baa dhanka Soomaalidana taalabay ahayd oo waliba dad hadda ka hor nidaamkii hore ee deegaanka aad u dhaliilsanaaba hadda ku dacweeyay in maaragtay ragga sababta ilaa hadda xabsiga looga hayo maxay tahay waxa kale wali xabsiyada ku jira kasoo marka laga tago madaxdii hore ee Soomaalida niman kale oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigray oo kamid ah madaxdiisa sare ee TPLF oo maaragtay ay kamid tahay Kariya Ibrahim afeenkii golaha federationka hore iyo madax kale oo federaalkana ka shaqeeyay qaarkood muxuu ahaay ay ka shaqeeyeen dowladda Tigray oo dhawaan la soo qabtay marka kuwaas waxa la leeyahay dabcan waa kuwa ku adeesan muxuu ahaay dagaalkii lagu qaaday ama weerarka lagu qaaday ciidamadii taliska waqooyi ee ku sugnaa Maqale isla markaana qayb ka haragii soo abaabulay hadaba dooda ugu weyn taas ayay dabcan ka dhalatay arintan siyaabaka dad kale duwan oo soo dhaweynay way jirtaa in maxaabiista maaragtay ee la sii daayo waxa kamid ah midowga Afrika Musa Faki gudoomiyaha midowga Afrika ama komishanka midowga Afrika ayaa soo ka hadlay waa aad u soo dhaweeyay maaragtay in maxaabiistaas xabsiga laga sii daayo dal kalena dabcan way ka hadleen maaragtay marka lagu dhaliishan yahay dawladda inay ragga sidiisa waxa kamid ah oo leeyahay wali waxa see muuqmuuda meydadkii dhaawacay maaragtay aan qabnay ayaad maaragtay marinaysan milix saadarteed nimankan in xabsiga laga sii daayay maahayn dhanka kale markaan eegno madaxweynaha dalka Eritrea ayaa wareysi saacado socday oo bixiyay waxa uu aad ugu dhaliilay maaragtay nidaamka federaalka iyo dastuurka qoomiyadaha Itoobiya ee dalkan lagu maamulo kaas oo ku tilmaamay inuu yahay maaragtay base-ka ama asaaska dhibaatada wadanka ka taagan siyaas arrimo fara badan buu ka hadlay laakiin arinta Itoobiya ayuu aad uga hadlay waxa kale oo ka hadlay baad in dagaalka ay ku soo qaadeen Itoobiya muxuu ahaa deegaanka Tigray oo ahaa mid ku salaysan isdifaacid maadaama TPLF ay dalka Eritrea dagaal ku qaaday horaantii ama dabayaqadii 2020 ama horaantii 2021 waxa kale oo ka hadlay in aan jiri doonin waxa la yiraahdo jamhuuriyad madax bannaan oo deegaanka Tigray ka hirgasha taana maaragtay loo baahan yahay in laga tacaalo waxa uu yiri TPLF dhibaatooyinka Eritrea u geysteen waxay ka cuslayeen ama ka badnaayeen ama ka miisaan culus yihiin buri dhibaatooyinkii Hayle Selassie iyo Mengista Hayle Mariamba ay shacabka Eritreanka u geysteen waxa uu sheegay in dhibaato TPLF ka yar ama ka weyn ayna ka jirin muxuu yiri geeska Afrika taasoo dhibaatooyin badan ku abuurtay muxuu ahaay dalka Eritrea xitaa sabab u noqotay in sanooyin fara badan la saaro cunaqabatayn siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba taasoo wadankaas go'doomin fara badan loo geystay isla markaana hawshaas ay TPLF gacan weyn ku lahayd kadib markii Eritrea isku dhaceen Ethiopia 98 sidoo kale Sudan isku dhaceen sidoo kalena Djibouti isku dhaceen taas iyadoo loo cuskanay markaa in qaramada midoobay iyo dalal fara badan oo caalamka kamid ah ay cunaqabatayn ku soo rogaan maaragtay dalka Eritrea taas oo ilaa hadda buu aan ka soo kabalaanay ayuu yiri waxa kale oo sheegay in hadii la rabo buu maaragtay in dhibaatada Ethiopia wax laga qabto loo baahan yahay in dastuurka iyo nidaamka federaalkaba ama meesha laga saar gabigiisaba ama maartay wax ka bedel lagu sameeyo dabcan siyaas afoorqi wuxuu taageero buuxda u muujinayaan fikradii ahayd in nidaamka federaalka ee qoomiga iyagoo waliba qoomi ma hayna qabiilka ku salaysan ay yiraahdeen in meesha laga saaro
isla markaa nidaam kale ka duwan la keeno fikradaas inkastoo ayna qabin qoomiyadaha Itoobiya oo dhani haddana qoomiyad dad tiro kooban ama qoomiyado kooban ayaa qaba maaragtay in doodaas dib loo furo ku saabsan in wax laga bedelo ama dib habeen lagu sameeyo dastuurka inkastoo dastuurka haddii dib habeentiisa la furayo qodobo badan oo u baahan in wax laga bedelo ay jiraan haddana qodobada ay adkaan doonto wax laga bedelo waxa kamid ah nidaamka federaalka iyo deegaanada samaysan iyo waliba qodobyada qodobka 39aad oo isagu tibaaxaya xuquuqaha qoomiyadaha Itoobiya u yeelanayaan inay ismaamulaan oo noqdaan ismaamul madax banaan iyo dawlad federaal ah oo la wada leeyahay deegaan walba marka qoomiyada isku dhaqanka isku diinta iyo isku afka ay leedahay lagu asaaso taas waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu culus ee maaragtay la filayo inay yihiin qodobada ugu adag ee aan la mari doonin qodobada kale aan la isku raacsanayn waxa kamida waxa weeye waa calanka calaamadihiisa saddexda midab ka sakow calaamada kale xidigta ee buluga oo la leeyahay calaamad muujinaysa Itoobiya ma aha calaamad sinaan halka qoomiyadaha qaarna ay leeyihiin taas waxay muujinaysaa sinaanta iyo nidaamka federaalka ee qoomiga ku saleysnaa hadaba doodaha ugu waaweyn ee la rabo inuu hadda wada hadalada qaran dib loogu furo waxa kamida koow in dastuurka qodobo kamida aan la isku faaqsanay ama dastuurka laftigiisaba nidaamka federaalka iyo waliba calanka iyo qodobo kale oo u baahan in la isla eego oo marka wada tashiyadaas halkay u jihaystaan intooda u badan marka la isku raaco marka hadda waxa socda muxuu ahaay xulitaanka 11 qof oo commissionka wada hadalada qaran hogaamin doona commissionkaas hadda dadka ayaa maartay xulaya shakhsi kasta uu xuli kara iyadoo website iyo telefoon iyo email intaba lagu diri karo shakhsiyaadkaas waxa lagu xulnaa qofka inuu yahay qof Ethiopian ama ay tahay qof Ethiopian qof qoomiyadaha dhan ilsaman ku eegaya oo aanu kala yaxanayn iyo qodobo kale fara badan hadaba Soomaalida iyaga maxay naga gudboon muxuu ahaay arinta ku saabsan commissionkaas la asaasayo in dad Soomaali matala oo doodooda maartay fagaarahaas ku bislaya marka imika wali fursad waan haysanaa ilaa 6 bisha ayay soconaysaa maartay hawsha xulitaanku qofka aan u baahanahay magaciisa saddexan aqoontiisa iyo ciwaanada laga heli karo inaan foomkan ku bixino telefoonka ku dirno ama emailka ku dirno ayaa iyadana muhiim ah si aan ugu yeelno meeshaas fagaarahaas dad inagayna matala oo maartay qayb ka noqda wada hadalada qaran ee dhawaan la furay waxa samciga channel ayaa daawanayseen hadii aad naga cusub tahay subscribe dheh like tana anaga ilaawin commentigana ku dar asxaabtaadana la wadaag adiguna hadii aad naga cusub tahay waad maasan tahay subscribe noo sar hadii aad hore noo sii joogtayna asxaabta qaaliga ayaad ka mid tahay halkaas ayaan kugu haynaa tan iyo kooxda dambe waxaan ku dhaafeynaa nabadgeliyo